Saaxiibayaal, markaad soo gashaan website-ka Alibaba, hadda waxaa idinka tusaaya kombiyuutarka. Taleefankana waad ka isticmaali karaysaan. Waxaan u maleynayaa in badan waxaa fudud kombiyuutarka, because si waasac ah ama waadac ayaad si fiican screen-ka ugu wada arkaysaa. Muuqaalka maanta oo ku saabsan sida alaab raqiis ah, qiimo jaban aad si fudud ugu raadsan kartid ayaan rabaa inaan idin tuso. Horta, sida hore qaabka hore oo la isticmaali karaa still adigoo isticmaali kartid qaybta search-ka oo halkan waxaad doontid intaad ku qortid ayaa kadib halkaas search-ka ku dhufan kartaa. Qaab labaad ayaa idin jirto, taasoo ah sida Google-ka oo kale ayay keeneen, taasoo ah inaad halkaas kaamirada isticmaali kartid oo sawir ahaan aad u gelin kartid wixii markaaseeto aad doonaysid inaad aad raadsatid ama aad ka raadisid. Okay, markaan halkaas uga soo gudubno, qaabka kale oo rabo inaan tuso ama qaabka saddexaad ayaa ah adigoo isticmaalaysa AI. Alibaba waxay soo kordhiyeen hadda AI. Let's go straight, hore u ka aadno. It's here. Waxaa la yiraahdaa AI Sourcing Agent. Halkaas qaybta kore markaa ku soo gashidba waad arkaysaa qaybta navigation-ka. Kuwan kale dhan waa soo dhaafaysaa, qaybtan ayaad imaanaysaa. Qaybtan ayaad imaanaysaa oo la yiraahdo AI Sourcing Agent. Marka halkaan imaadid, ku dhufo kadibna Source Now ayaad ku dhufanaysaa. Kadib wuxuu kugu connect gareynayaa, aan ku dhufto, wuxuu kugu connect gareynayaa kadib Gmail-kaaga ayaad ku connect gareynaysaa. Aniga hadda connected ayuu ii yahay, adiguna Gmail-kaaga ayaad ku connect gareyn kartaa. Markaad halkaan imaadid, waxaad ku qoraysaa oo kale waxa aad doonaysid. Aniga intaanan halkaasi tagin, qaybtan waxaa waye waxaad sharaxaysaa wixii aad doonaysid. Describe your needs, waxa aad raadinaysa halkaan ku sharxaysaa. Waxaad samayn kartaa ama qaybtan ayaad tagi kartaa ama qaybtan sawirka soo gelin kartaa. Hadda waxaan sameynayaa waan qeexayaa, waxaan leeyahay I'm looking for cheaper Samsung phones ayaan dhahayaa. Waxaan raadinayaa Samsung phones oo qiimo raqiis ah. Okay, wixii oo Alibaba uu markaaseeto ku jiro ayuu hal mar isoo forward gareynayaa. Ila socda. Okay. Waxaan waa Ultra, saa arkaysin. Okay. Kuwan waa A72, like waa originalkii, boxkiisa everything wataa. Kuwan waa A20, sidaa ka arki kartaan. Haddii aad 10 xabo ilaa 24 xabo aad doonaysid, $48 lagaa siinayaa. Waa A20 boxkiisa wato chargerkiisa, everything brand new. $48 ayaa lagaa siinayaa 10 xabo wixii ka badan haddaad doonaysid. 25 xabo wixii ka badan ilaa 49 wixii gaarayo waxaa lagaa siinayaa $45. 50 ilaa 98 piece wixii gaarayo ama ka badan $44 ayaa lagaa siinayaa. Laakiin mid ogaada, minimum order-kooda waa 10 piece. Minimum order waxaa laga wadaa alaabta inta ugu yar aad ka qaadan kartid. 10 xabo wax ka yar ma ka dalban kartid. Okay, haddii aad doonayso marka inaad iibsatid, halkaan aad usoo dhaadhacaysaa. Verification iska daa. Halkaan aad usoo dhaadhacaysaa. Qaybta filaarta ka soo soco. Okay, send inquiry ayaad dirsanaysaa. Okay, I agree. Continue. Soo kaalin gareynayaa. Then qofkii supplier-ka aad la xiriiraysaa. Marka waxaad leedahay wax sidaa u doonaysid. Intaasoo xabaan rabaa. Sizes-kooda uu yahay 32 GB, 64 GB, 128 GB.
inta aad ka doonaysid intaa ku qoraysaa, kadibna hoos aa imaanaysaa, meesha magacaaga ku qoraysaa, Bashiir oo kale, magacaaga ku qoraysaa, company name-ka hadaa rabtid waa ka tagi kartaa, wax weyn maahan, hadaa rabtid dukaankaaga magaciisa gashan kartaa. Kadib waxaa imaanaysaa qaybtan hoose, waxaa gelinaysaa halka alaabta lagugu keenayo, gobolka iyo halkaas. Kadibna halkaas aad leedahay attachment, meeshaan ayaad soo gelin kartaa. Maya attachment looma baahno, halkan yacni waxaa loo baahan yahay alaabta yacni aad doonaysid inta xabo ay tahay ayaad gelinaysaa. Kadibna qaybta hoose ee send now-ga ayaad ku dhufanaysaa. Kadibna hodhow qaybta message-ka ayuu kaala soo xiriirayaa qofka. Hal mar aan cancel. Qaybta message-ka ee Alibaba ayuu hodhow qofka kaala soo xiriirayaa. Meeshaan messages-ka ayaad tagaysaa, qaybta messages-ka inta imaanaysaa. Horta waa in ciwaankaada uu ku jiraa, waa inaad sign in dhahdaa, ciwaankaaga gelisaa. Kadibna qaybta message-ka ayaad galaysaa. Qaybta message-ka ayay fariinta kugu soo dhacaysaa. Hadda ciwaankayga inaan geliyo ayuu u baahan yahay. Verification ayuu ii dirayaa, waa wado dheer, laakiin qaybta message-ka ayuu qofka ku imaanayaa. Kadibna meesha ayaad kala hadlaysaa. Haddiidan fahansaneen insha Allah qaybta message-ka iyo sida ciwaan loogu samaysto Alibaba hadaa u baahanta muuqaal waa ka samayn karaa. Haddii aad garanaysana waa caadi, laakiin aniga waxaan rabaa hadda inaan idin tuso qaybtan cusub ee ah AI Sourcing Agent oo ah qaab fudud oo hadda aad alaab uga raadsan kartid Alibaba. Waa mahadsantihiin saaxiibayaal, inta kanaalka socota aad baan idinku mahadcelinayaa. Thank you.